xilligan aan idinla hadlayno xaafado ku yaala waqooyiga magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya isku dhacyo hubeysan oo u dhaxeeya ciidamo militari ah oo ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay u abaabulayeen qaabeeleed gaadiidka dowladda ayaa lagu dagaalamayaa iyo rasaastii qaranka u lahaa. Qoysas badan oo ay ku jiraan waayeelo iyo dad naaf ah ayaa caawa gurigoodii ka barakacay waxayna ku sugan yihiin meel kaynaha u dhaxaysa Shabeellada Dhexe iyo Muqdisho. Qof ka mid ah dadka naafada ah ee Muqdisho ka barakacay oo caawa duleedka magaalada jooga ayaan la hadlay goordhow. gurigeennii xafada iga watay waa garta dowladda istagaalaysa dhashiikayaal iyo dabajeexyaal iyo aakayaal iyo 12 ilmahaygii aniga iyo ummadda meesha degan oo dhan waxa tiin ku jira iyo waxa qorax ku jaban iyo haddaad aragto waa diyaabay waa garta haddaad ii soo duubi jiraan beriyaaba ayadoo muuqaala xoolihii la'day iyo dadkii ayadoo muuqaalaaba taga haddeer lama tegi kara saacadaane. xagee way meesha lagu dagaalamo waad ka baxdeen? meesha lagu dagaalamo waxa waaye walaalow maslaxa iyo suuqa xoolaha jalyaala meesha looga baxaayo dhinacaas iyo gubadle iyo waxa raacdi inta ku dhaxla waay. yaa dagaalamayo? waxa dagaalamayo waa wax goof jarjaraayo iyo wax irsaaqad ka rabo oo kulley wax goof jarjaraayo waayo oo dowladda oo goofaha amniga jarjaro. ma ciidan dowladeed ba? waa ciidan dowladeed oo tuutaysan iyo dhashiikayaal oo tuutaysan oo calankii dowladda dhinaca bidix ugu dhegan yahay waa. goorma ayuu dhacay dagaalkan? ma maanta mise maalmo ka hor? maanta hadda baan kula taaganay bay soo fadhiyaan saacadaana bay xabadda dhacaysaa. marka wax dad ah oo dhintay ama dhaawacmay waad ogtiin ma jirta? wax dad hadda lama ogaan karo. dadkii wax taleefanadii ka dhumay wax taleefanadii dad ka jiraan oo meesha solar waaye wax taleefankii duur uu soo tegay oo iska dhacayo kulley saacadan lagama war heli karo. waxa adiga maantay dhaceen galabta abaare 8 saac 9 saac. marka ma soo laabateen idinka mise weli waxaa jirtaan halkii aad u barakacdeen? ma soo laaba karnaa waaye oo maxaa ku soo laaba karaynin tiknikadiiya meeshi taallo ilaa haddeeraa lagu leeyahay. ma soo laaba karnaa maxaa ku soo laabanaa maadana ma annaga abaaraana barakiciyey rafaadaana barakiciyey xabad oo boorasha oo la karsaayo $2 ay joogtaa annagii oo saas u dhibareena haddana xabad iyo dhashiike iyo qax iyo orod noogula daro walaalow. waaya marka dadka qaar waxaa la ii sheegay inay dad waayeela yihiin, qaarkood ay naafa yihiin, caruur ku jiraan, ay adkaatay maanta inay ka baxaan halkii lagu dagaalamay. ma la kulantay dadka dhibaatada qaba? dadka dhibaatada qaba aniga kamid ah. aniga inba xadaa la yiraahdaa. haye jiisaan ahay. haye miraa wada. waa garta mawlada xabadii iga dhacda hadda ka hor. waa garta ha ahaato maxuma anigoo bere wata ah bere ciyaal iyo hooyadeeyo waayeeloo jiraaneeya iyo ciyaala tabartiyaasa ku adeegaa. waa garta walaal macaane in dhashiika dowladda inta dhashiikayaal noo soo qaataan annagoo irsaaqadii ummadii bini-aadamkii jiilaalkay abaarta jirto aad og tahay waaya ayna kaa qorsooneen inay haddana dhashiike inti noogula daro goof la jarjaraayo iyo wax balaayo inti la soo kaco xabado $200 lagu barakiciyo 2,000 oo qofood oo qoys lagu barakiciyo ay caawa juqda ku hoyaayaan walaalkeew dowladda aniga qodka waxaa ma aqaan. waad mahadsantahay walaal. maxaa ka codsanaysaa marka dowladda? dowladda waxaan ka codsanaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha Cumar Finish iyo taliyaha ciidanka kulley aniga reer baadiyaan ah waxsaasa siima aqaane intaas waxaa ka codsanaa inay naga qabtaan dadkan oo isku ganayo waajib bariyey goof iyo $200 meel ay qofka soo galaysa isku ganayo inay naga qabtaan codsanaa.